Lax iyo ri beri baa waxaa wada deganaa lax iyo ri. Waxaanay wada lahaayeen guri qurux badan. Maalin ayaa ridii iyada oo gurigoodii ku socota waxay aragtay mas aqalkoodii ka soo baxaya. Ridii way carartay iyada oo naxsan markaasay ku tiri laxdii waxaan arkay mas aqalkeena ka soo baxaya. Laxdii baa tiri i tus maska. Markaas ayay israaceen si ay maska u arkaan. Waxay arkeen maskii oo guriga albaabkiisa fadhiya oo raba wixii guriga soo gala in uu cuno. Dabadeedna way ka carareen gurigoodii. Waxay u tageen daanyeer dhex jooga beer moos ah. Markaas ayay ku yidhaahdeen waxaannu u baahannahay cunto, biyo, iyo guri aannu seexanno. Daayeerkii markii ay u sheegeen dhibaatada ku dhacday aad ayuu uga xumaaday. Oo wuxuu u keenay cunto iyo biyo. Markay cuntadii dhammeeyeen wuxuu geeyey guri qurux badan oo uu ka sameeyey caleenta muuska. Waanay ugu mahadceliyeen soo dhowaynta wanaagsan ee u fidiyey. Daanyeerkii wuxuu yidhi gurigan aad caawa seexanaysaan idinka ayaa iska leh laga bilaabo caawa. Dabadeedna wuxuu weydiistay in ay la joogaan si ay iskaga weheshadaan wixii soo weerara. Sidaas ayayna saddexdoodii ku saaxiibeen. Intaas ayay ku eg tahay sheekadeennu maanta ee haddii aad ka heshay muuqaalkani fadlan la wadaag asxaabtaada mahadsanid.